بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa xogta dalka daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu door karoon warka xogta dalka. dil wadareed dad shacab ah loogu geystay magaalada Gaalkacyo. Faysal Cali Waraabe oo ku hanjabay inay gacanta ay ku dhigi doonaan magaalada Garowe. madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug oo ka hadlay dilka dad shacab ah loogu geystay magaalada Gaalkacyo. dowladaha Mareykanka iyo sidoo kale Britain oo markale la doonay in Muqtaar oo xornimadiisa oo helo. Al-Shabaab ayaa la wareegay qayb ka mid ah gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. waa sidee xaaladda magaalada Beledweyne. ciidamada Liu Booliska oo duugay baraakad ay lahaayeen dad xoolo dhaqato ah. akhbaaraadka caalamka ee warkeena aan idinku soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona dowladda Ruushka oo sheegtay in ay sii laba jibaarayso awoodeeda military iyo Mareykanka oo markale doonayo in uu Sacuudiga kala hadlo xaaladaha kala duwan ee hadda Yaman ay ku jirto. daawadayaal inta daawanayseen waxay ahayn qodobadii ugu door corona warka xogta dalka. midkana waxaad u diyaar garoodaan haddaba daawade haddii aad ku xusubtahay warbaahinta xogta dalka subscribe dhah gambaleelka furo like-na noo saar share-na noo dheh si saaxiibada warkii ugu dambeeyay iyo arrimaha caalamka iyo Soomaaliya ay u helaan warkii oo dhan. dil wadareed ayaa dad shacab ah waxaa lagu geystay magaalada Gaalkacyo. wararkan ka helayna magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in xalayto halkaasi dil wadareed 9 ruux oo la sheegay inay ahaayeen dad shacab ah lagu geystay koonfurta magaalada Gaalkacyo. dilkan ayaa waxaa geystay kooxo hubeysan kuwaasi oo ka careysan dilkii xalayto fiidkii loo geystay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada nabad sugidda Galmudug kaasi oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Cali Taaliil Cadceeda. dadkan la dilay oo gaaray ilaa 9 ruux ayaa waxaa la sheegay inay ku sugnaayeen hal goob isla markaana hal mar la toogtay waxaana sidoo kalena dhaawac loo geystay qof kale oo shacab ah oo la joogay. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan dadkaasi la dilay ee ahaayeen dhammaantoodba ganacsato ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wariyaal ku sugan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug dhinaca dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxay sheegeen in meedka dadka la geeyay isbitaalka Baraxley oo ku yaala halkaasi. ilaa hadda ma jiro wax war oo ka soo baxay maamulka Galmudug iyo kan gobolka Mudug oo ay uga hadlayaan dil wadareedkani xalayto loo geystay 9 ruux sidoo kalena la dhaawacay qof kale oo shacab ahaa kaasi oo ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo. iyadoo dhinaca kalena uu ka hadlay madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa si weyn u cambaareeyay dad shacab ah oo xalayto lagu laayay magaalada Gaalkacyo ee qaybta Galmudug kadib markii koox deegaan ah ay ku eedeeyeen in ay dileen sargaal ka tirsan ciidanka Galmudug. Guuleed ugu baaqay laamaha amniga Galmudug ayaa si degdeg ah u sheegay inay baaritaan ay u sameeyaan si cadaalad loo soo istaajiyo dadkii dilkaasi geystay. waxaana uu sheegay in dhammaanba ay marnabaan loo dulqaadanaynin dhibaatooyinka marka qaarkood loo geysanayo dadka shacabka ah. waxaana Cabdikariin Xuseen Guuleed oo tilmaamay in arrinkani ay noqonayso mid loogu daneynayo shacabka sida uu sheegay madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sidoo kale tilmaamay in labadii maalmin ee la soo dhaafay ay jireen dhibaatooyin kala duwan oo loo geysanayo dadka shacabka gaar ahaan dadka ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa jira in ay saameynta ugu badan ee bulshada marka qaarkood amba loo geysanayo ay tahay mid aad u sii laba jibaarmayso iyadoona madaxda maamulka Koonfur Galbeed ilaa hadda wax war aysan ka soo saarin dilka loogu geysanayo qayb ka mid ah deegaanada maamulka Galmudug dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa isna dhankiisa ilaa hadda wax war aan ka soo saarin dil wadareedka ka dhacay magaalada Gaalkacyo. waxaa maalinta ka dambaysa sii badanaya dadka reer Koonfur Galbeed ee dilalka lagu geysanayo qayb ka mid ah deegaanada maamulka Galmudug. Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu ku hanjabay inay gacanta ay ku dhigi doonaan magaalada Garowe. Faysal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciiday Somaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inay gacanta ay ka bixin doonaan deegaanada ka tirsan gobolka Sanaag. Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay in iyagu awood ciidan ay leeyihiin isla markaana ay gibi ahaanba ay Garowe ay tagi doonaan ciidamadooda isla markaana ay awoodooda ay sii laba jibaari doonaan. gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan Puntland ay marka qaar madaafiic ay ku ridaan ciidanka Somaliland ee ku sugan deegaanada ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag
sidoo kale gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu xusay in Somaliland ay mar waliba diyaar u tahay in nabad lagu noolaado. ciidamada kala taabacsan Somaliland iyo Puntland ayaa xilligaani waxay isku horfadhiyaan deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Sool iyo Sanaag iyadoona mararka qaarna ay madaaf isweydaarsadaan, taasina ay sababto in ay cabsiyo kala duwan ay soo kala gasho dadka shacabka ah ee ku nool gobolada Sool iyo Sanaag. maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa waxay yihiin kuwa si gaar ah u dagaalamaya gobolada Sool iyo Sanaag, kuwa midka kala sheeganaya in uu isaga u maamulo. casaaka degan xaaladda magaalada Beledweyne ayaa waxay tahay mid aad la isku fahmi la'yahay xaaladda siyaasadeed. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare kadib markii xilka uu ka qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxaa soo baxay khilaafyo kala duwan oo looga soo horjeedo xilka qaadista madaxweynaha maamulka Hirshabelle uu ku sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Yuusuf Dabageed ayaa si cad u sheegay inuusan marnaba u dulqaadanaynin go'aanka qaldan uu qaatay madaxweynaha maamulka Hirshabelle, waxaana uu tilmaamay in talaabo kasta oo la qaadayo ay noqonayso mid in lagu xisaabtamo loo baahan yahay, laakiinse arrinka hadda soo cusboonaanaya ayaa waxa uu yahay mid aad looga carooday iyadoona bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Hirshabelle ay hore u sheegeen xaaladda siyaasadeed ee cakiran hadda ka taagan qeybo kamid ah gobolka Hiiraan ay tahay mid saameynteeda ugu badan uu dusha u saaranayo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa hore waxa loogu diiday gelitaanka magaalada Beledweyne isagoona habeenadii ugu dambeeyay ku hoyanayay xero ciidan oo ku taala duleedka magaalada Beledweyne. waxaa sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda qaarkood deegaanada maamulka Hirshabelle ay hore u sheegeen in aan marnaba loo dulqaadanaynin dhibaatooyinka hadda ka taagan halkaasi. talaabo kasta oo la qaadayo ay noqonayso mid loogu daneynayo dadka shacabka ah. dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa waxay doonayaan in la soo daayo Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur oo gacanta dowladda federaalka Soomaaliya ku xiran 6 bil oo kaamil ah ayaa u buuxsaday, si kale hadii loo dhigana waxa uu xiran yahay sanad kala barkiisa, waxaana uu yahay hogaamiye hore uga tirsanaa Al-Shabaab. dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin hadii uu tartankii ka qayb gali lahaa xilligaani waxa uu noqon lahaa mid kamid ah madaxweynayaasha Soomaaliya ee dowlad goboleedyada dalka, kaasi oo dadka deegaanada koonfur galbeed ka soo jeeda ay aaminsan yihiin in Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur hadii uu hogaanka deegaanada maamulka koonfur galbeed gacanta uu ku dhigi lahaa isbedelo badan oo la imaan lahaa. Sheikh Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur ayaa 6 bil ka hor laga soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyadoona 12 December ay ahayd. Abu Mansuur ilaa hadda ma helin cadaalad, waxaana uu ku jiraa xabsi ay maamusho hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. soo qabashadiisa waxa ay ku dhintay dad badan oo shacab ah, waxaana sidoo kale ka dhashay qalalaas xoog leh. 6 bil kadib waxaa la sheegayaa in dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ay mid kale ay doonayaan in ay soo deeyaan. Mareykanka ayaa dhaqaale xoog leh ku bixinaya ciidamada Abu Mansuur iyo qoyskiisa, waxa uu ka damacsan yahay in uu kala shaqeeyo howlgalka Mareykanka ee ku howlan la dagaalanka argagixisada maadaama Sheikh Mukhtar xog badan uu ka hayo arrimaha argagixisada caalamka. sidoo kale dowladda Ingiriiska ayaa wada dadaal ay ku raadinayso wada shaqeynta Abu Mansuur ay u aragto fursad muhiim ah oo wada shaqeyntiisa. safiirka dowladda Ingiriiska ayaa hore u qaabilay Sheikh Mukhtar waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa kamid ahaa wada shaqeynta dhexmarta Robo iyo UK. xarakada Al-Shabaab ayaa waxay la wareegeen qaybo kamid ah deegaanada waqooyi bari ee dalka Kenya. deegaan lagu magacaabo Kontonle ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada Al-Shabaab ay la wareegeen. wararkan ka heleyno halkaasi ayaa waxay sheegayaan in ay deegaanka Kontonle ay ciidamada Al-Shabaab ay galeen, isla markaana talaabadaasi ay ku sheegeen in ay doonayaan in qaybo kamid ah dalka Kenya ay la wareegaan. dowladda Kenya ayaa hore waxa uu sheegtay in ciidamada Al-Shabaab ay yihiin kuwa dhibaato ba'an ku haya dadka shacabka ah ee ku nool dalkaasi. halkaad warkaasi daawadayaal aad kala socotaan waa warbaahinta xogta dalka. iminkadana akhbaaraadka caalamka. haddii aad channelkeena ku cusub tahay daawade subscribe dheh, share na noo dheh, like na noo saar, gambaleelkana furo sidii wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya ay kugu soo dhacaan. iminkadana akhbaaraadka caalamka.
dowladda Ruushka ayaa waxay mar kale sheegtay in awoodeeda military ay si laba jibaari doonto. madaxda wadanka Ruushka ayaa waxay sheegeen in talaabo kasta ay qaadayaan ay noqonayso mid loogu daneynayo dadka shacabka ah ee ku nool dalkaasi. dowladda dalkaasi Ruushka madaxweynahooda Vladimir Putin ayaa waxa uu tilmaamay in rajada ugu weyn ay leeyihiin ay tahay in talaabo kasta oo la qaadayo ay noqonayso awoodda saxda ah ee dalkaasi. dowladda Ruushka ayaa waxa ay tilmaameen madaxdeeda in hamiga ugu weyn ay leeyihiin ay noqon doonto sidii isbedelo dhaqaale ay ku sameyn lahaayeen. wadamada Ruushka iyo sidoo kale wadamo dhowr ah oo Iran ay ka mid tahay ayaa hore waxay u sheegeen in ay isbedelo degdeg ah ay sameynayaan. ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay in dowladda Sacuudi Carabiya ay xulafadeeda hoos u dhac weyn ku yimid maadaama Yemen dhibaatooyin badan ay ka jiraan. dowladaha Sacuudiga iyo Mareykanka ayaa hore waxa uu sheegeen kooxaha Xuutiyiinta ee ka dagaalama wadanka Yemen in talaabo adag laga qaadi doono. kooxaha Xuutiyiinta ayaana waxa ay hore u tilmaameen in ay doonayaan in qaybo kamid ah wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya ay la wareegaan. warkii dunida daawadayaal aad ka daawanayseen xogta dalka waanageynta. haddii aad channelkeena ku cusubtahay daawada noo saar subscribe oo gambaleelka furo sidii wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya ay ku soo dhacaan. like iyo share kana noogu dadaal mahadsanideen.